waxaan idinku hambaliyeynayaa shaqada wanaagsan oo maanta u fadhidaan isugu timaadeen inaad taafurkeedii iyo tababarkeedii aad aqoon iyo waayo aragnimo isweydaarsataan kala qaadataan gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadku waxay leeyihiin miqyaas iyo shuruudo lagu soo xulo iyo aasaas sharci oo ay ku fadhiyaan ka ugu horeeya guddi farsamo oo doorasho ka shaqeynaysa lagu soo xulaa waa in asal ama aasaas sharci uu jira qaab dhismeed sharci oo ay leeyihiin oo shuruudihiisii xambaarsan oo lagu soo xulay qaab dhismeedka sharciga ah ee noo yaal baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya uu meel mariyay ee uu ansixiyay waa heshiiskii madaxda siyaasadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay isla qaateen baarlamaanka la mariyay madaxweynuhu saxeexay iyo habraacyadii ka farcamay oo shuruudihii loo baahnaa in ay lagu soo xulo xubnahaas wiilasha iyo gabdhaha ragga iyo haweenkaba ah ay lagu dooranayay idinka ilaahay idin qoray idin qadaray inaad noqotaan ruuxantii markaan siifiyadiina eegayna dad aqoon-yahan khibrad iyo waayo aragnimo kala duwan leh oo u qalma xilalkan loo igmaday karti iyo aqoon leh ayaa ka muuqata maxaa markaa ugu muhiimsan kow qaab dhismeedka hay'adda doorashada ay leedahay oo qaab dhismeedkii madaxda hogaaminaysa gudiyada gudaha ee ay iyaga qudhoodu isu sii kala jabinayaan ama u kala shaqeynayaan hadday noqoto qaybta gudida wacyigelinta qaabilsan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo musharaxiinta qaabilsan baridda iyo hagidda tilmaamaha qaabilsan taasoo dhowr 3-4 cisho ee tababarka aad ku jirtaan aan qabo inay idinka iyo isweydaarsan doontaan khubaradan fududeeyaasha tababarku aqoontu badankeedu idinku duugan tahay waa waxaad ogtahay ma ku sheegaa maxaynu se isweydaarsanaa waa taan oran jirnaa ardayda markaynu ahayn alcilmu bayna talaamiid aqoontu dadka dhexdiisa kulligeen arday baynu nahay waayo cilmi lama dhameeyo qofka inoogu ilaa qofka inoogu yar aqoon baa inoo dhiman oo tahay inaynu kororsano marka aqoonta inagu wada jirta ayaad isweydaarsaneysaan oo wadaagaysaan idinka iyo fududeeyaasha tababarayaasha maaragtay fududeynaya shirka aqoonta idinku jirta idinka soo qafayaan waa isweydaarsaneysaan sideenuu shaqeynaa habraacyadii iyo heshiiskii iyo shuruucdii dalka iyo noo yaallay iyo dastuurkiina waa lagu salaynaya maxaa markaa looga baahan yahay kow in qofku uu yahay qof karti iyo hufnaan leh madax bannaan dhexdhexaad ah aan eexanin miqyaaska doorasho lagu qabto oo ah miqyaaska cadaaladda traditionka ee dhaqanka u lahayn ama ta islaamka ama ta shuruucda kale inoogu duugan inuu ka duulo qofku xisaabtan baa idinla yaal xisaabtan baa idin hor yaal isla xisaabtan if iyo mid aakhiraba baa idinla yaal shaqadaa qabanaysaan waa u madax bannaan tihiin cid alle cid aad ugu eexanaysaan ama aad ugu sooraysaan xaq aynan lahayn ma jirto waa idinka iyo mas-uuliyaddiinna iyo garashadiinna iyo isxilqaankiinna iyo isla xisaabtanka qofnimo iyo gudihiinna xilli waxa lagu jiraa doorashadaa lagu jirana dadka tartamaya ee doorashadaa u tartamaya waxa weeyaan marka deegaan doorasho la yidhaha ama constituency afka qolaad kursigaas dad ilmaadeera u tartamaya wiilal iyo gabdho ilmaadeera laba nin ama wiil iyo gabadh ama laba gabdhood ilmaadeera u tartamaya sababaad ugu kala eexataana adiga ma jirto miyuu buuxiyey shuruudihii xaq madii tahay xalaal ma tahay doorashadu free and fair xor ma tahay xor maxay ka tahay faragelin xor miyay ka tahay doorashadan cagajugleyn miyay xor ka tahay eex miyay xor ka tahay in la isticmaalo musuqmaasuq iyo waxyaabaha qofka bedelaya in uu xaqsoorkii ka leexdo xor miyay ka tahay cidda xaqiijinaysa taasi waa idinka bari UN-kan u shaqayn jiray qaramada midoobay ayaa wasiirka cadaaladda iyo madaxa maxkamadaha
ayaan kaxaynay Somaliland tababar Suudaan gudoomiye maxkamadda sare ee Suudaan oo ah nin PhD sharciga ku haysta ahaan jiray ayaan la kulanay dadkii aan la kulanay kala duwanaa ka mid ahaa wuxuu madax bannaanida garsoorku qofkay ku xidhan tahay garsoorkan madax bannaay meesha cadaalad iyo xaq ma yaala waxay ku xidhan tahay qofku hadduu isagu isliido oo uu isbahdilo oo uu beeri qaato noqdo oo uu qabyaaladiisto noqdo oo uu iyo qof jeclaysi iyo kala jeclaysi ku kaco meesha garsoor madax bannaani ma yaala laakiin qof ifkiina magac raba iyo maamuus iyo sumcad inuu ku noolaado aakhiradiina su'aasha ka horeysa ee hor iman doonta inuu ka nabad galo hadduu yahay qofkii meesha waxa jiraya garsoor madax bannaan doorashada 2021 ma hufnayd ma madax bannaanayd xaq ma ku dhisnayd xor ma ahayd xalaal ma ahayd qiimeynta la sameyn doono idinka gacanta ku haya maanta idinka dabadeedna xaqiijin doona dabadeedna la oran doona meesha garsoor xaq baa ka dhacay xalaal cabasho lama waayo cabasho waxa dhici kartaa inay timaado inta lagu guda jiro iyo inta natiijadii markay soo baxdaba xildhibaanadu waxa laga yaabaa in cabashooyin yimaadaan waa sababta gudiyada khilaafaadka haddana aanu sameynay qofkani shuruudihii ma maray wixii looga baahnaa ma buuxiyey habraaci sharciga ahaa ma soo maray hadduu haa tahay oo cabashadiisu ayna xaq ku dhisnayn gudida khilaafaadka haddana eegaysa oo waxaan la eegaynaa habraacii khilaafaadka lagu xalinayay khaladkaasi wuu dhacay ha la saxo khaladkaasi ma dhicin xaqdarruu qofkani ku doodaya marka nidaamka check and balance ee isla xisaabtanka ayaa habraacyadeen iyo heshiiska aynu ku shaqaynaynaa ay dhigayaan waxaan aaminsanahay marka maskaxda iyo aqoonteedu ku jirta la eego in wax aad uga wanaagsan natiijo aad uga wanaagsan kuwii hore oo cadaalad ku dhisan aydu soo saari doontaan idinka guddiiduna gudihiina aad wada shaqayn doontaan shaqada hay-ad qabatee wanaageedu kama soo hadho wada shaqaynta wanaagsanay shakhsiyaadkii wada shaqaynayaan fikirkii iswadaarsanayaan dood dhex marayso dabeedna sharciga ay dib ugu noqonayaan iyo maxaa hage inoo ah maxaa tilmaame inoo ah maxay tahay inaynu ku kala baxno xalaal ma tahay baa haddana la isweydiiyey doorashada meesha ka dhacday maxay xalaal ku tahay waxay xalaal ku tahay dhammaan habraacyadii loo baahnaa iyo shuruudihii loo baahnaa oo aan eex lahayn ayaa iyagana la maray haddaynu isnaa maanta free and fair oo keliya ka sheekeeya ilaa galabta ilaa caawa oo qiimeeya maxaa free ah maxaa xor ah qiimeeya maxaa xalaal ah ilaa caawa ka bixi mayno mas-uuliyad iyo xil baa idin saaran mid soomaalinimo muwaadinnimo islaamnimo iyo cadaalad iyo xaqsoor iyo garsoor baa idin saaran oo laydinkula xisaabtamayo marka in aydun tababarka 4 cisho aydun idinkuna isbarataan aqoonta isweydaarsataan 4 cisho khubarada iyo idinkuba aad maaragtay wixii xog ah wadaagtaan dabeedna idinkoo wax idin baxsan yihiin wada fadhiisataan shaqada idin taalla aa guda gashaan maxaa kale qayb ka ah tababarka codbixiyaha qudhiisa mardhow la tababari doono iyo wacyigelinta shacbweynaha codka dhiibanaya ergooyinka codbixiyayaasha iyagana la wacyigelin doona waa qayb kale oo ka mid ah habka doorasho ee ay ummadi ku dhaqanto had iyo jeer maalgelinta doorashada oo kharashkii lagu qabanayay doorashadii iyo miisaaniyaddii iyo maaliyaddii lagu qabanayay dowladdu qoonta ugu tala gashay sidoo kale qof kastoo tartamaya fiiba qasnada dhexe ku dhacaya ayaa saaran marka taa qorsheynteeda miisaaniyadda doorashada qorsheynteeduna idinka idin taal tababarka mar dhow guddiyada hoose aad tababaraysaan manualkii iyo hagihii tababaruhu ka shaqayntiisi waa idin taalla codbixiyaha tababarkiisi waa idin taalla qorshihii doorashada ama operation plankii iyo logisticskii loo baahnaa adeegii farsamo ee loo baahnaa wixii oo dhan waa idin yaalaan cabashooyinka kala duwan iyo xidhiidhka aad la yeelanaysaan daneeyayaasha doorashada hadday yihiin xisbiyo siyaasadeed iyo hadday yihiin shakhsiyaad caana dadkaasoo dhanna inaad public relations la yeelataan ayaa iyadana loo baahan yahay waxaa sidoo kale miidiyaha iyo habka aad u adeegsanaysaan hadday tahay guddida doorashooyinka iyo guddida khilaafaadka labadaba suxufiyiin waaweyn baa idinku jirta iyo dad miidiyaha aqoon u leh marka waxay la tahay taana inaad yeelan doontaan media strategy iyo communication maxay tahay inaan ummadda la wadaagno goormay tahay inaynaan hadlin goormay tahay inaynu hadalno goormay tahay inaynu daneeyayaasha u yeedhno oo u waranno xog iyo war isweydaarsanno
goormay tahay inagu gudaheenu inaynu doodno ta u kale ee muhiimkii waxa weeye oo Soomaalina hadda waxaan isleeyahay dagaalkii inagu riiq dheeraaday baa wuxuu abuuray war culture dhaqan dagaalku raadayntiisu ka tagay oo sirti ay yar tahay gudidiinaasi marka aad shaqaynaysaan ee shirarka ku jirtaan inaad sir yeelataan laakiin hadda idinkoo fadhida tagis message hoosta laga diro hebel baa sidaa yiri heblaa sidaa tiri halkaasaan wax maraynaa dabeedna hebelkii hadda la soo wado anu waxyaabo badan oo dhacay doorashooyinka 17 sanadood baan ka shaqaynay waxyaabo practical aan idinka shaqaynay idinka sheekeynay iyadoo fadhida leeyahay adiga noogu adag naga fuq ya marka waxyaabaha waxa laga yaabaa mar dhowna practical u aragtaan waxyaabahana iska wacyi geliya oo waxa weeyaan markay fikirka waa ku kala duwanaan kartaan marka wada joogtaan laakiin waa doodaysaan waxba isla qaadanaysaa waa go'aan gudi laakiin mar dhow fikirkiida ku kala duwan go'aan waxa uu qaadataan inaad difaacdaan baa idinka baahan yahay arinta kale mas'uuliyadu idin saaran tahay waxa weeye iimaanka inaad u sugtaan tartamayaashana waa la idinka baahan yahay oo qulubtooda kasbataan oo tirahdaan walaalayaal wiilashiin iyo gabdhihiin baan nahay annaga waxaan garsoor cadaalad oo xaq ah oo xalaal ah baan u taaganahay muujina doonaa doorashadana waa lagu kala nabadgeliyaa dalka amnigiisa iyo nabadgelyadiisa waa ogtihiin election violence ama doorashada dhibaatooyinka iyo rabshadaha ka dhaca had iyo jeer wadamo nidaamkii dawladnimo uu taagan yahay uu dhisan yahay ayay keentaa in colaad uu u horseedo marka waxa idin saaran maanta mas'uuliyad weyn kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun an ra'iyati qof walba waa la xisaabtamayaa if qof walbana waa la xisaabtamayaa aakhiro culimada idinku jirta idinku iswacdiya culimada mararka qaar waxa filayaa jadwalka 4 cisho inay culimada waaweyn ee Sheekh Bashiir Axmed Salaadi aad qayb kaga dartaan oo ay tababarka ka qayb qaataan waayo diinteena islaamka runtii xaq soor iyo cadaaladda sida uga hadasho aad iyo aad bay u ballaaran tahay waa waxaad ogtahay ma idin sheega la idin la dardaarmi maayo shirku si rasmi ah buu inoogu furan yahay waxaan qabaa inaad dhameystirantiin kartideeda iyo awoodeedana ay leedihiin aydun Soomaaliya u horsoodi doontaan wax la idin kaga daydo oo la yiraahdo wiilashii gabdhihii guddiga doorashooyinka xilliga in soo maray guddiga khilaafaadka xilliga in soo maray shaqadii wanaagsaneed ay qabteen afarta cisho aqoonta iyo kartidiina idinku jirtay isweedaarsada maxsuul wanaagsan baa Ilaahay idinkiisa inoo soo bixi doona karti iyo hufnaan guddi ahaan labadiina guddiba muujiya qof ahaanna qof walba muujiya iyo isla xisaabtan dhab ah oo if iyo aakhiraba qofku uu yiraahdo maxaa waxa iga horeysa aakhiro ifkiina sumcad iyo magac baan rabaa inaan ku noolaado oday caan ah oo Soomaaliyeed oo deegaan hoose isku sii ahayn Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe ku magac dheeraa badankiinu inaad maqasheen ama taqaanaan baa laga yaabaa ayaa hal hays weyn buu lahaa wuxuu yiri jiray magaca iyo manfaca magaca horeeya manfacu isaga iska soo ka doonanaya inaad aragteen mooyaan professorada ama looyarada waaweyn caanka ama aqoon-yahanka waaweyn public lecture inuu bixiyo meel ka hadlo waayo aqoon buu dhisay magac buu dhisay magacii markuu dhisay hadalkiisii miisaan buu leeyahay qof iska hadla maaha waa qof kelmadda oo oranayo miisaama oo halkeedii oo dadka ku dhicdhicin oo maaragtay dhowrsoon oo akhlaaq leh islaamkuna wuxuu u yimid waa akhlaaq Soomaha xadiiskii inama bucistu li utammima makaarim al-akhlaaq akhlaaqda iyo hiddasamida iyo dhaqanka suuban inaan dhameystiro ayaa la ii soo saaray akhlaaqduna waa qofka waxa lagu qiimeeyo qofkaas wax dhowrsan inkastoo aan xamar ugu yimid wax la yiraahdo indhaha la shitaa ninkaas waa nin garmeed midba midku ka rabshad badan iyo albaabka laado ayaa lagu leeyahay nin garmeed waayo noo ka leexo ya ninka edebta leh ee dhowrsoon ee hadalkiisa miisaamay miskiin waayo baa la leeyahay marka aniga waxaan isleeyahay miqyaaskaasi sax ma aha miqyaaska saxda ahi waa ka ku dhisan dhaqanka Soomaaliyeed ee wanaagsan diinta islaamka ku dhisan referee ama siidwala ay noo tihiin daneeyayaasha doorashada ee kala duwan ee tartamaya u tihiin shaqo wanaagsan iyo guul baan idin rajaynayaa tababarkuna si rasmi ah uu inoogu furan yahay waa mahadsantii